dadka markii laga soo tago islaamka aniga aad iyo cajab geli waxaa kamid ah Nelson Mandela iyo 27 sano soo adkeysanaya macni wax ka daranaa jira marka inuu sa argudanin marka xabsiga ka soo baxay inuu qofna ka argudanin dadkii asaga ku tacadiyo dhan inuu iska cafiyo oo waxba u raacanin asoo macni iyo 27 sano inuu sabrayay adkeysanayay oo yoolkiisa maalin uu ka tanaasulay marka waxaa la yiraahdaa markii uu qaatay wada hadalka iyo uu qaatay maslaxada yaa waxa ku kacay dadkiisa taageerayaashiisa islaantiisa ugu horeyso ala yiri nimankii markaan jilcinay cadawga ahaa cadaanka ahaa oo cusuriyiinta ayaad rabtaa in is dhiibto marka hadalku yiri cajiib ah wuxuu yiri annaga nagama go'do sida loola mucaamalayo xukuumadda ama taliska ayay ka go'daa yiri markii hore ayaga noo qasbay cunfiga oo in annaga cunfi aadno alaan dadka mudaaharaad waxay sameey jireen silmi ah kuwana cadaadiyay markaas cunfiga aaday soo maaha hadda wuxuu yiri ayaga ogol silmiga limaada naxnu nakhtaar cunf ayaga hadday silmigii ogol yihiin hadda annaga maxaan violence u dooranayna oo ugu maadayna uga adkaanayna South Africa maanta ma jiri lahayd xikmadiisa hadday dadka madowga aarsa lahaayeen South Africa day ma jirteen wadanka Afrika ugu muhiimsan ma noqoteen marka runtii great leaders oo ay Gandhi ka mid ah dadka aan aniga aad iyo aad aan ula dhaco iyo sida peaceful ka ahay oo nabadeed dadka aan aad uga helo waxa kamid taariikhdiisa aan ku noqnoqdo ninkii ah Martin Luther King Amerikaanka ah waxaan uga helana waxay kamid tahay powerkiisa dhan wuxuu ahaa khitaab hadal ummadda malaayiinta wuxuu ku dhaqaajinayay awood kale ma haysan xafiis ma joogin madax ma ahayn laakiin power of oratory allamahu albayan ilaahi yiri soo ma allamahu albayan marka wa inna min albayani la sihrun